golaha shacabka gudoomiye ku-xigeenada xildhibaanada sharafta leh mas-uuliyiinta kale ee dowladda gudoomiyaha maxkamadda sare mas-uuliyiinta kale ee dowladda howlwadeennada golaha shacabka laamaha amniga iyo ciidamada qalabka sida bahda saxaafadda marti sharafta kala duwan iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin mahadoo dhan waxay u sugnaatay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo inoo suurto geliyey inaan si nabad ah aan ku gudubno mid ka mid a waajibaadkeena dastuuriga maanta walaalayaal sida aad ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu 15 bishan Juun ii magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha oo igu aaminay mas-uuliyaddan qaran si aan isla markaana fursadii siiyey si aan ugu adeego dalkayga iyo dadkayga xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin waxaan ogahay in xilkani yahay mid culus una baahan karti aqoon hufnaan daacadnimo iyo adkaysi badan khaasatan xilligan aan ku jirno oo waddankeena ay ku habsadeen abaaro ba'an iyo colaad waxaan in badan oo noloshayda ka mid ah u soo adeegay uguna soo adeegay dalkeenna qaybaha waxbarashada oo aan macallin heerarka kala duwan ee waxbarashada ka soo ahaa waxaan ka soo shaqeeyay arrimaha bani aadamnimada waxaan ka soo shaqeeyay xafiisyada dowladda heer state iyo heer federal labadaba arrintaas oo aan rajaynayo in ay siisay xog ogaalnimo badan iyo baahida dalkeenna iyo dadkeennu ay qabaan taas oo aan rajaynayo sidoo kale in ay itusinayso meelaha fursaduhu ay ka jiraan iyo siyaabaha loo xalinayo caqabadaha waaweyn ayna hortaagan xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin sida aynu la wada soconno waxaa maanta dalkeenna waajahayaa abaar ba'an oo barakicisay kumanaan Soomaaliyeed waxaan yaqiinsanahay in ay waajib nagu tahay in aynu dhammaanteen u guntanno gacansiinta dadkeenna ay abaaruhu halakeeyeen walaalayaal anigoo ka duulaya halku-dhegii madaxweynaha mudane xasan sheekh maxamuud oo ahaa Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah waxaan ka shaqayn doonaa xaqiijinta siyaasad xasiloon oo loo dhan yahay horumar muuqdana ka taabagelisa arrimaha amniga garsoorka iyo cadaaladda la tacaalidda abaaraha dib u heshiisiinta wadahadallada walaalaheen Somaliland dimuqraadiyeynta dalka kobcinta dhaqaalaha maamul wanaagga iyo isla xisaabtanka qabyatirka iyo dhamaystirka dastuurka ku-meel gaarka ah adeegyada bulshada iyo dhisidda siyaasad arrimo dibadeed oo ku qotomta danaha dalka xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin marka aad codkiina isiisaan waxa aan si dhaqso ah u bilaabi doonaa wada tashiyo ballaaran oo aan la yeelan doono golayaasha dowladda qaybaha bulshada waxaana hortiina ka ballan qaadayaa in aan soo dhisi doono xukuumad tayo leh laguna soo xulay aqoon karti hufnaan khibrad iyo waayo aragnimo oo ka turjumaysa baahiyaha kala duwan ee dalka ka jira hirgelinaysa xaqiijinaysa horumar dhaqan dhaqaale oo baaxad leh haddii alla idmo xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal waxa aan si ixtiraam leh idinka codsanayaa in aad isiisaan codkiina kalsoonida si aan inagoo wada jirna u gudanno fulinta waajibaadkeenna dastuuriga ah
ee ina hor yaalla waa mahadsantihiin